Daawadaha qiimiga badan oo ku soo dhawow janalka Masraxa Official aad ku barateen maadada Chemistry-ga meel kastoo aad uga sugan tahay gobollada Soomaaliya oo manhajka waxbarashada laga dhigo ee sanadkan soo baxay. Waxaan ku leeyahay daawade haddii aad janalka ku cusub tahay, haddii aad soo baaqato, fadlan xaqiisa sii subscribe-ta saar, gambaleelka furo. Sidoo kale waxaa lagaa doonayaa inaad like-ta nagu dhiirigelisid, wixii comment-ina waa loo baahan yahay. daawade ciwaankeena ugu horeeya oo aan rabno inaan ka hadalno weli waxaan ku guda jirnaa chapterkii koowaad oo ahay hydrocarbons. Waxaan ka hadlaynaa nomenclature of alkanes, magacaabida waxa la yiraahdo alkaneska marka la magacaabayo processka ay marayso. daawada su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay oo kale maadaama ciwaanka uu ahay nomenclature of alkanes, magacaabida alkaneska marka la sameynayo. Nomenclature maxaa la dhahaa? is the naming waa in la magacaabo of hydrocarbons, hydrocarbonka marka la rabo in la magacaabo waxaa loo yaqaanaa erey ay isla yaqaanaan culummada chemistry-ga siiba marka la joogo hydrocarbonska naming marka lagu sameynayo waxa la yiraahdo nomenclature waxaa laga wadaa magacaabis. Naming of hydrocarbon in la magacaabo hydrocarbon ayaa magacaani ayaa loo yaqaanaa nomenclature-na waa magac cilmiyeysan. Markii la fasirano wuxuu noqonayaa is the naming waa in la magacaabo of hydrocarbons. Okay, waxaan sida aan ugu soo celcelinayo danta aan ka leenahay ayaa waxay tahay ustaad inaad fahantid. Generally guud ahaan the names magacyada of alkanes marka tusaale ahaan general guud ahaan marka la rabo in la magacaabo alkaneska contain waxaa ku jira prefix wax la yiraahdo horgale. Waxaa ku jira prefix horgale. Waxaa ku jira waa maxay? Prefix horgale. Waxaa ku jira prefix horgale. Horgalahaas waxaan leenahay which kaasoo indicates wuxuu cadeynayaa the number of carbon, tirada kaarboonka ayuu cadeynayaa. Numberka kaarboon ku jiro kaarboon koowaada, kaarboonka labaada, saddexaada, afraada, shanaada, lixaada uu cadeynayaa. And suffixka wax kale lagama wado waxaa laga wadaa waa gadaalgalaha ayaan leenahay. Suffix maxaa laga wadaa? Gadaalgalaha. tusaale ahaan oo kale marka laga hadlayo ain oo ah ain waxaa iska leh waxa la yiraahdo alkane. yaa iska leh waxa la yiraahdo waatana alkanekana iska leh. waxa iska leh waa alkane. alkane suffixkiisa gadaalgalihiisa muxuu noqonayaa? ain ayuu noqonayaa. which signifies kaasoo tilmaamaya muxuu tilmaamaa the alkane family, alkaneka qoyska uu ka tirsan yahay. waxaan inay alkane yihiin waxa cadeynaya ayaa waxay yihiin ane ayaa u dambeysa. Example of alkanes waxaa ka mid ah tusaale waxaan waa molecular formula methane, ethane, tusaale ahaan propane, butane. kan hadda waxay u qoran yihiin same structural formula. qaabkay qoran wax maxay? same structural formula. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa la yiraahdo nomenclature of alkanes, magacaabida alkaneska. However, si kastaba haatee alkaneska are named waa la magacaabaa into different systems. laba nidaam oo kala duwan ayaa loo magacaabaa. macnaha alkaneska marka la rabo in la magacaabo waxaa loo magacaabaa laba nidaam oo kala duwan into different system. labadaas oo kala ah trivial system oo magaca kale loo yaqaano ay tahay common system iyo IUPAC oo international union pure and applied chemistry. marka isku soo wada duub haddii aan faahno alkaneska meeqa hab ayaa loo magacaabaa midkan koowaad oo hadda aan soo sheegnay iyo midkan labaad. labadan hab ayaa loo magacaabaa. waxaan rabnaa inaan ka hormarno ciwaanka koowaad oo ah trivial system waxa la yiraahdo
ama waxa la yiraahdo common system. In this system nidaamkani alkanes are named using three terms. Marka la rabo common systemka ama trivial system waa isku mid marka la rabo in la magacaabo waxaa la isticmaalaa saddex eray oo la yiraahdo normal iyo iso iyo neo. saddexdan eray ayaa la isticmaalaa. waxaa la isticmaalaa hanaanka la yiraahdo trivial system ama common system. waxaa la isticmaalaa saddex eray oo ah normal, iso iyo neo ayaa la isticmaalaa. marka waxaan rabnaa inaan ku horumarno maadaama aan kusoo sheegnay normal, iso iyo neo, saddexdaas ayaa waxaa loo isticmaalaa trivial systemka. marka waxaan leenahay normalka marka laga hadlayo this system nidaamkan isiisad waxaa loo isticmaalaa to name in la magacaabo straight chain alkane silsilada alkaneka oo toosan. silsilada alkane oo toosan. silsilada alkane oo toosan macnaha wax kale laga wado waa like this, sidaan oo kale u toosanta. tusaale ahaan oo kale maxaan jirin wax la yiraahdo Barrington chainkeedu. Barrington chainkeedu waa maxay? way toosantahay macnaha like this. hadda waa kana kan fiiri butane fiiri butane kana tusaale noogu filan. kan ayaa tusaale noogu filan. marka nidaamkan waa la magacaabaa iyadoo marka la magacaabayo straight chain alkane silsilada dheer. tusaale kaarboonadana tirino. kan waa kaarboonka koowaad, kan wuxuu noqonaa kaarboonka labaad, kan wuxuu noqonaa kaarboonka saddexaad, kan wuxuu noqonaa kaarboonka afraad. wax side chain ma ujeedaa? side chain malaha Soomaan. silsiladu waa same structural formula. waa straight chain alkane waa silsila straight oo toosan Soomahan. waxaan leenahay butane marka la magacaabayo waxaan leenahay butane ama si kale waxaan dhihi kartaa n butane. n butane waxaan dhihi kartaa n butane. tusaalahan kaarboonada hadday lix yihiin hexane aa leedahay. hexane markaad tirahdid waxaad leedahay n hexane. hadday toddoba yihiin heptane n heptane waxaad dhihi kartaa n heptane. macnaha silsiladu waa straight chain alkane waa straight chain alkane marka la silsiladu markay toosan tahay waxaad leedahay n hexane, n butane, n octane, n nonane, n decane. intaas habba waa isticmaali kartaa markaad rabtid inaad magacaawdid. okay waxaan rabnaa ustaadow inaan ka hadalno ciwaankeena oo noqon doono wax la yiraahdo okay iso wax la yiraahdo rabnaa inaan ka hadalno. this system nidaamkani isiisad waa la isticmaalaa to name iyadoo la rabo in la magacaabo alkanes. nidaamkan waa la isticmaalaa iyadoo la rabo in la magacaabo alkanes in which one methyl group hal methyl group ayaa jira is attached ku dhagan to the secondary carbon. kaarboonka labaad ku dhagan yahay. kaarboonka labaad ayuu ku dhagan yahay. kaarboonka labaad ee Barrington chainka ku dhagan yahay. tusaale kan waa kaarboonka koowaad, kanna waa kaarboonka labaad. tusaale kale kan waa maxay? kaarboonka saddexaad ayaan leenahay. tusaale waxaan leenahay hadalka meesha ku qoran waxaa lagu dhahaa one is this system nidaamkani isiisa waxaa loo isticmaalaa to name in lagu magacaabo alkanes alkane in lagu magacaabo in which one methyl group hal methyl group ayaa is attached wuxuu ku dhagan yahay to the secondary carbon kaarboonka labaad of the Barrington chain ee silsilada ugu dheer. tusaale ahaan kale silsilada ugu dheer maxay noqon doontaa wax la yiraahdo waa propane. waxaan leenahay propane maadaama kaarboonada ay yihiin saddex. kaarboonka labaad inta maxaa uga dhagan fiiri. kan muxuu noqonaa mataqaanaa? kan waa maxay? waa one methyl group. mid ku dhagan waa maxay? waa one methyl group. marka waxaa fiiri oo iso alkane. marka iso alkane tusaale ahaan oo kale adiga kaarboonka labaad ku dhiganta oo saddex soo maaha. tusaale ahaan oo kale propane ma dhahaynaa? maya. waxaan leenahay waxaan ka tirsanaynaa kaarboonada kan saddexaad soo maaha. kan waxaan u tiraynaa 4 ayaan u tiraynaa kaarboonada iyo tiri marka waa 1 2 3 4 iyo tiri. kaarboonada waa imisa? waa hal xabo side chain ah
hal xabo side chain iyo saddex oo parent chain ah oo straight chain ah iyo mid oo side chain ah isku dar waa afar soo maahan maadaama afar ay yihiin waa butane maadaama afar ay yihiin maxay noqonayaan butane marka inta waxaa ku dhagan side chain ku dhagan inta waxaa ku dhagan side chain oo methyl group ma la dhihi doono tusaale ahaan oo kale marka la rabo kan propane oo kale in la magacaabo wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo 2 methyl sharciga marka la qaadi doono wax la yiraahdo ayubaga qaabkaan uu noqon doonaa 2 methyl 2 methyl 2 methyl 2 methyl propane methyl propane 2 methyl propane goorma noqonaa mataqaanaa waa markii la aado sharciga ah ayubag oo ka dhigan macnaha kaarboonka labaad waxaa ku dhigan methyl laakiin annaga hadda waxaan taaganahay trivial system saas loogu magacaabayo tusaale maadaama kaarboonka labaad 1 methyl group uu leeyahay marka 1 methyl group oo haddii uu yahay waxaan ka tirinaa kaarboonada tiri 1 2 3 4 tiri waxa aniga aan iso soo mahayn waxaan leeyahay waxa la yiraahdo kaarboonada haddii ay afar yihiin wuxuu noqonaa waxa la yiraahdo butane marka waxaan leeyahay isobutane 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 loo magacaabaa marka la fiiriyo trivial system oo markii la joogo iso saddexda tiri kan ayaa sax marka kan marka la yiraahdo qaabkaan loo magacaabaa marka laakiin kana maxaa noqon doona 2 methyl propane this process ma la isticmaali doono laakiin waxa la qaadan doono maxay kan oo isobutane waxay ka dhigan tahay kaarboonka labada side chain oo 1 methyl group ku dhigan 1 methyl group markuu ku dhigan yahay methyl ahaantaas ma xisaabsanay laakiin waxa kor ka xisaabsataa kaarboonada tiri kaarboonada ka tirso tusaale ahaan kale 3 hydrogen waa 6 3 ku jiro 9 kaarboono isku dar waa 9 waxaad ogaataa marka 9 hydrogen taana ku dar waxay noqon doontaa 10 marka waxa laga rabaa isobutane noqonaya isobutane this process kan oo dhan magacaabista uma isticmaali kartid marka waxaan leenahay neo ayaan rabnaa inaan gelno neodan waa midka saddexaad waa ereygii saddexaad oo three terms ahayd mid wuxuu ahaa normal oo ahay midna wuxuu ahay iso midna wuxuu ahay waxa la yiraahdaa neo markaan intaan u guda gelin oo casharka aan sharxin tusaale ahaan kale kaarboonka labaad waxaa tusaale ahaan kale tusaale ku siinaa hadda kaarboonka labaad waa kan 3 waxa waa 2 3 wax kale laga wado kaarboonka labaad wuxuu yeelanayaa 2 methyl group kan waxaa kugu soo sheegay methyl inta waxa ku dhagan side chain inta waxa ku dhagan side chain tusaale ahaan kale macnaha waxa waaye haddii 2 methyl group kaarboonka labaad ay ku dhigto uma xisaabsan doono tusaale ahaan oo kale markii aniga aan xisaabinayo wax la yiraahdo sharciga ayubaga waxaan raacaa wax la yiraahdo 2,2 jitin dimethyl waa marka la raaco sharciga ayubag marka la fiiriyo dimethyl propane ay noqonay dimethyl propane maadaama marka qaabkan waa marka loo fiiriyo ayubaga waa u tegi doonaa sharcigan marka sidan ma loo magacaabi karaa markaan joogo neo ma loo magacaabi karaa maya ma loo magacaabi karo laakiin markii kaarboonka inta methyl group intana waa 2 methyl group uu leeyahay waxaa loo magacaabi waxaan tirsan doonaa 3 kaarboon tirsan doonaa kaarboonada intii yaalo dhan iyo tiri tusaale ahaan kale 3 kaarboon kuwana kan ku dar 4 waay kana ku dar 5 meeqa kaarboon meesha taal waa 1 2 3 4 5 waa 5 kaarboon maadaama 5 kaarboon ay tahay see u magacaaba ma taqaanaa
waxa la yiraahdo neo. See u magacaabaa neo, see u magacaabaa neo ayaa leeyahay. neo markaan dhaho meeqa carbon waa 5 soo maahan, waa benta neo pentane, neo pentane, neo pentane. neo pentane. Okay, neo pentane qaab this process habkaana loo magacaabaa waxaa leeyahay neo pentane. oo waxaa la dhahaa laba methyl group ayaa kaarboonka labaad ku dhagan. okay, marka bal qeexitaanka aan isla fiirina neo waxaan leenahay this system habkaani is used waxaa loo isticmaalaa to name in lagu magacaabo alkenes, alkene in lagu magacaabo in which two methyl group laba methyl group are attached waxay ku dhagan secondary carbon atom of the parent gene. kaarboonka labaad waxaa ku dhagan two methyl group, kan waa kana one methyl iyo one methyl isku dar waxay noqonayaan two methyl group. two methyl group kan waa mid kan iyo kan waa mid kan methyl kan oo methyl isku dar waxay noqon two methyl group laba methyl are attached waxay ku dhagan secondary carbon atom of the parent gene. kaarboonka labaad ay ku dhagan oo loo yiraahdo neo. okay, neo pentane ayuu noqday. okay, markaan tan u guda galo tan oo kale markaan saan u tiriyo salaam kale sharcigan 1 2 3 antaan tiriyo 2 3 dimethyl propane ma isticmaali doono, laakiin waxaan isticmaali doono kan ayaa wuxuu noqon doonaa wadiiqada saxda ah ee magacaabista marka la fiirinayo magacaabis. salaam kale kana kaarboonka labaad inta 2 methyl group ku dhaga sax taasi secondary carbon waa secondary carbon of the parent gene. silsilada ugu dheer chainka silsilada ugu dheer waa imisa waa 1 2 3 okay, waxaan leenahay 1 2 3 4. okay, marka kaarboonka labaad waxaa ku dhagan two methyl group intana methyl ugu dhagan intana methyl ugu dhagan. haddii xaaladda noocan ay dhacdo maxaan dhihi karnaa mataqaanaa waa 2,2 sharciga aybaga 2,2 dimethyl butane noqonay. waxaas dhan fiirin salaak afar carbon inta mataalo kaarboonka ku dar 5 kana ku dar 6. so maxaa la dhihi doonaa waxa la yiraahdo neo hexane loo magacaabi doonaa. waxaa loo magacaabi doonaa neo hexane sababta loo magacaabo waa maxay il weydiiyo maxaa dhihi kartaa neo hexane saalse ku timid 1 2 3 4 5 6 kaarbonaas aan tiray kaarboonadu waa 6 soo maahan waxaa leeyahay neo hexane. marka haddaan qeexitaanka ugu soo celiyo this system nidaamka siis waxaa loo isticmaalaa to name in lagu magacaabo alkenes, alkenka in which two methyl group laba methyl group ayaa waxay ku dhagan yihiin the secondary carbon of the parent gene. kaarboonka labaad maxaa ku dhagan laba methyl group ayaa ku dhagan waa kana tusaalayaashaana kaaga filan. marka daawada waxaan kaa codsanaynaa si casharada ku xiga ay kugu soo dhacaan subscribe to saar gomboleelkana furo adigoo raalli ah. inta badan dadka qaar markii linkiga loo soo diro oo u soo dhaco markay furtaan open up ha taabtaan open up markay taabtaan open upka markaad taabatid wuxuu kuu gudbinaa sidii aad u saari lahayd youtube channelka subscribe-ta si gomboleelkana u furo lahayd. waxaa laga yaabaa markii linkiga lagu soo diro in aad gomboleelka afuro way sidaas wargale ciladaas ay ku qabsato.